السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوا kanaalka Afifa Warsame meel kastoo aad joogto maalin wanaagsan. Waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabto adiga iyo ehelkaaga, sidoo kale aad nabad qabtiin, sidoo kalena in Ilaahay caafimaad siiyo iyo cimri dheer. maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay ila qorsheey. waxaan qorsheeynaa bishan soo socota ee December sanadka 2022 hal bil aan nooga dhiman. insha Allah dhamaanteena Ilaahay nabad ha nagu wada gaarsiiyo. waxaan rajeynayaa in sanado badan aan isla sii wada joogi doono anagoo caafimaad qabna, sidoo kalena ma aragtay nabad qabna. ka hor intaan December aan qorsheysan bal aan gadaal u fiirino bishii November waxyaabihii aan qabanay. qofka inuu gadaal u milicsado naftiisa way wanaagsan tahay. markasta waan idin iraahdaa bishii la soo dhaafay aan gadaal ugu milicsano si ma aragtay aan iskugu dayno inaan wax ka bedelno. sidoo kale aan ma aragtay waxyaabihii qabyada noo ahay aan qorshaha bisha soo socota aan ku darsano si aan u dhameystirno. bishii November hadda la soo dhaafay waxyaabihii ugu badnaayay aan qorsheystay waa wada sameeyay alxamdulillah. midda aan ku faraxsan oo taas ka sii dheera waxay tahay inaan 4 buug aqriyo bisha ay qorsheysneed oo November, laakiin 5 buug aqriyo markii ugu horreysay inta 4 buug qorsheysto 5 buug aqriyo. xaqiiqdina bil waxay ahayd yani examiska aan haysto yani waxyaabo badan aan isku hay, laakiin lama oga stresska iskaga bahay ma oga 5 buug aqriyo. insha Allah waxaan rajeynayaa bisha December in aan ma aragtay waxa aan qorsheysto maan wax ka badan aan isku dayi doono inaan aqriyo haddii Ilaahay idmo. December qorshayaasha iyo yeesho midda koowaad horta waxaa kamid ah inaan 5 buug aqriyo. bisha hadda la soo dhaafay tijaabshay inaan 5 buug aqriyo. marka Decemberna waxaan ku darsan doonaa qorshahayga inaan ma aragtay 5 buug aqri doono haddii Ilaahay idmo. inkastoo aanan aqoon buugta aan aqri doono yani aan weli ka fikirin 5 buug ma aragtay December aan aqri doono, laakiin laazim inaan 5 buug aqriyo. sidoo kale qorshaha labaad ee bisha December alaya waxay tahay haddii Ilaahay idmo bisha January bilowgeeda waxaa galaa imtixaanaadka finalka oo semesterkana gala. marka waxaan isku dayi doonaa ka hor intaan la gaarin January inaan la gaarin oo isbuuc imtixaanka aan la gaarin bisha December maado walbo inay ii diyaarsanaato sida ugu badan yani ugu macquulsan. aan isku dayo yani inaan maado walbo waqti aan siiyo aan ma aragtay ku aqriyo oo ugu diyaar garo imtixaanka ka hor intaan la galin, sababtoo oo final marka la galayo uu kastoo ka adag yahay midtermka uu ka adag yahay. haddana waxaa laga yaabaa in chapteryaasha ay ka badan yihiin ma aragtay chapterada oo midtermka da 8 chapter mise 9 chapter ku galayso. waxaa laga yaabaa finalka inaad 18 chapter mise ma aragtay ugu yaraan 16 chapter inaad ku galayso. marka waxaa isku dayi doonaa waxa ma aragtay finalka aan ku gali doono ina bishan December dhexdeeda ma aragtay aan xalliyo. sidoo kale waraaqaha ay yaalo in aan ma aragtay wada qoro. hadda 3 waraaqadood ay taalo, kuwii kale waa qor bisha hadda November la soo dhaafaa qoray 3 baa ay taalo oo waliba mid ah hadda bilaabo maalmo ka hor mid qabiye. marka waxaa isku dayaa mid qabyadii iyo labada ii dhimanba in ay kan bishan oo December wada dhameystiro haddii Ilaahay idmo. qorshaha saddexaad oo bisha December aleeyaha waxay tahay inaad maalin kasta 30 daqiiqo exercise samaysto. November jadwalkayga kuma aanan darsan inaan exercise sameeyo, laakiin sidoo kale waa sameynaya maalin kasta alxamdulillah. marka November waxay isku day inaan 30 daqiiqo exercise maalin kasta samayso wax kasta intaan guriga ka bixin ma aragtay 30 daqiiqo sameeyo. qorshaha kale oo afraad ee December alaya waxay tahay in qarashaadkayga hoos u dhigo, yani waxyaabaha qarash gareynaa inaan hoos u dhigo. aan isku dayo hadda ma aragtay maalin kasta maqaaxida aad jiray inaan iska kala yareeyo at least guriga cunto ka qaatay mise ma aragtay at least ma aragtay wax qiimo jaban ma aragtay aan cuno. marka waxaa isku dayo qorshahayga afraad oo ugu muhiimsan bisha December sameyn doonaa waxay tahay inaan kastoo aan ku sameeyo qarashaadkayga hoos u rido. aanan dhar cusub soo gadan, kab cusub soo gadan, waxba cusub aanan soo gadan. buug waa soo gadaa, cuntona waa soo gadan, laakiin wax kale inaan soo gadan. isku dayo in aan sida ugu badan u xakameyn karo qarashaadkayga bisha December ana u xakameeyo qarash. qorshaha shanaad ee December alaya waxa ay tahay waxa inta badan caba kafeega saaid caba subaxdii mara caba mararka qaar duhurkii caba haddana galabtii mara caba. waxaa isku dayi doonaa inaa dhowrkaas jeer cabo kafeega inaa iska kala yareeyo. ugu yaraan maalintii hal mar cabo, mise hadda iska day kara aanan cabin mise ma aragtay aan 2 jeer cabo oo 3 jeer aan cabayo macnaha aan iska soo kala yareeyo. dabcan qorshaha 6aad December waxay tahay inaa fiidiyo aad soo gasho siiba bisha December fiidiyoyada ugu badan mise muuqaalada ugu badan soo gali doona waxay ku saabsanaa
doonaan book summaries ku saabsanaan doonaan sababtoo bisha November 5 buuga aqriyo buugaag kale waxa jira ayagana hore aan u aqriyo aanan weli idin la soo wadaagin marka bisha December inaad sidoo kale muuqaalka idin soo diray aad soo joogtay weliba muuqaaladaas ay ugu badnaadaan book summaries ay ugu badnaadaan yacni aan mawduucayaashaas kale ah kasoo yaray inta ma aragta sanadka cusub la gaarina book badan oo khulaasaysan ma aragta aan idin la soo wadaago marka qorshayaasheeda December intaas adigana bal ka fikir qorshayaashaada December maxay noqon doonaan insha Allah December markay dhamaadka ay sii noqonaysana waxaa sameyn doonaa qorshe sanadka 2023 qorshaha sameyn yani marka laga soo tago qorshaheena bilaha ah qorshe sanadle ah sameyn doona dabcan qorshe walba aan la idin sheegi ma adinkana ma ii sheegaysin ma marka laakiin qorshaha guud aan isla sameyn karno aan isla sameyn sida dabcan hadda bil kasta qorshaha guud oo aan isla wada sameyn karna idin la wadaaga soo maahan laakiin qof kasta qorshayaal u haysta oo san dadka kale la wadaagin marka sidaas la ajligeed sanadka markuu noo bilaabo rabo qorshe oo sanadle aan sameyn doona kaasina uu noo noqon doono qorshe sanadle laakiin tokadan marka koowaad aan bilaabay ay noqon doonta dabcan qorshaheena bilaha ahayne oo ila qorshe bish ahna wuu noo sii socon doonaa hadduu ilaahay idmo marka muuqaalkayga intaas maanta ku saabsan yahay waa ku mahadsantahay daawashada sidoo kale joogida kanaalka Afifa Warsaman yacni waa iska dareemi karaa kanaal iska caajisa cafo kaliya inkasoo hor muuqaysa maalin kasta moogta laakiin si intiina ila joogto idaawato saayida idinku faraxsanahay commentiskiina saayida uga helaa waxaan rajeynayaa in sanado kale badan aan isla joogi doono adiga iyo qoyskaagaba waxaa ku rajeynaa in caafimaad iyo farxad iyo nabad ku joogteen dhamaantiin iyo cimri dheer ilaahay idin siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.